Soomaali igu qosle ninka igu qosle cawsan u gabi qofkii labaad igu qosle Idris Lay iyo CK waa laba nin oo caan ah isla markaasina si weyn geyiga Soomaalida looga yaqaano. Waxa ay caan ku yihiin baraha YouTube-ka oo aad looga bartay inta aysan soo bixin aaladan kale ee TikTok-ga ee inta badan dhalinyaro badan oo caan ah maanta ay ku soo caan baxeen. Labadan dhalinyarada ah ayaa muddo waxaa ka jiray xifaaltan dhanka YouTube-ka ah oo ay ahayd hadday ahaan lahayd dhanka subscription-ka iyo weliba dhanka daawashada ama views-ka waxa loo yaqaano. Muddo dhexdaas ayay ahayd markeedii ugu horreysay markay Hargeysa ku wada kulmeen isla markaasina kulan qada iyo weliba sheekeysi ay samaysteen ayagoo isgacan saaray saaxiibayna yihiinna bulshada u muujiyey. Laakiinse muddo un ka yar kadib ayaa waxaa soo ifbaxay in ay labadii nin haddana dib xurguf u dhex martay iyadoo xurguftoodana aysan ahayn wax saa u sii weyn. Habeenada ka mid ah ayaa CK oo live saaran la weydiiyey su'aal ahayd yaa aqli badan qurux ku dhiig leh iyo weliba Idris Lay Cabdi asagoo uga jawaabay inuu aqli badan yahay qurux ku dhiig leh laakiinse Idris Lay Cabdi ayaa tii ka bixiyey falcelintii ayaa waxa ay dhashay hadalhayn badan iyo weliba isqabqabsi sii socda ilaa iyo hadda ay gaartay in YouTube-da la isku soo fadhiisto oo muuqaalo iyo weliba la iska soo baro. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo qaaday Idris Lay Cabdi asagoo riwaayad yar uu ka sameeyo aad u qosol badneed oo ahayd macnaheeda in uu baqayo CK uuna gariirayo. Haddaba labadan dhalinyarada ah ayaa la ogeyn sababta rasmiga ah ee isku dirtay iyo waxa ay isku dagaaleen balse keliya inay ahayd sheekada golaaftan iyo kaaftan. Inta badan social media ayaa lagu heshiinin oo waxaa la isku qabsadaa waxyaabo kala duwan oo qofba aragtidiisa iyo waxa lagula dagaalaa meesha uu marayo ayadoo bahda social media isqabqabsigooda iyo dagaalada dhexdooda uu aad u badan yahay walow uu Idris la sheegay in arrinta hadda ay tahay views oo 8 maalin oo uu ka maqnaa CK uu hadda ku soo laabtay saaxada si uu viewskiisa kor ugu qaado isla markaasina dhexdooda dooda ah uu uga faa'iideysto. Shacabka ayaa falcelin kala duwan ayagoo ka sameynaya ayagoo u arkaya labada nin ee is haysta midba inuu gardaran yahay kan kale. Laakiin taageerayaasha ayaa ayagu kala qaybsan oo qaybna la jira CK qaybna la jira Idris Lay Cabdi walow meesha dad kalena lasoo hadal qaaday lagu lifaaqay oo aan sal iyo rayd ku lahayn arrintani. Idris Lay ayaa aad ugu jawaabay hadallo kulkulul oo cambaarayn ahna u soo jeediyey saaxiibkiis CK oo yiri ka saar gabadha meesha magaceeda isla markaasina cabsida ku haysa iska saar oo aniga iyo adiga toos aan isku abaarno. Taasi ayaa keenaysa in xaaladdu ay sii kululaato walow CK la fili doono saacadaha soo socda in uu muuqaal asagana jawaab ah soo dhigi doono taas oo ka dhigi doonta xaaladda mid xamaasad aad u daran sii kicisa isla markaasina labadooda ka dhex dhalisa hadalhayn badan. Soomaali igu qosle ninka igu qosle cawsan u gabi qofkii labaad igu qosle